بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك. guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. intaa kadib waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowduuc yar oo ka hadlaya habfikirka Soomaalida iyo xanuunkan COVID-19. ka hadalkiisu aad buu u farabatay xanuunkan sababtoo ah waa wax taagan oo saameyn ballaaranna ku yeeshay dunida oo dhan dadka ku nool. maadaama uu saa yahay marka dadkii in badan oo ka mid ah waaba ay dhibsanayaan maadaama ilaa afar jeer ama 4 nooc oo hadal jeedin ah looga hadlo xanuunkan. tusaale ahaan waxaa looga hadlaa wargelin in dadka dunida joogo la siiyo warbixinada hadba halka uu marayo xanuunkan si guud iyo si gaara waddan kasta. waxaa jirta warbixino 24 saac ee lasoo dhaafay ay dowladuhu bixiyaan. taas waa midda labaadna waxay tahay wacyigelinta ka imaanaysa dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka, iyaduna waa qayb labaad. qayb saddexaad oo looga hadlo oo ka hadalkeeda uusan yareyn gaar ahaan dadka hadda aan la hadlaya ee Soomaalida waxa weeye qaybta wacyigelinta diinta oo ay culummada iyo wadaadada aad uga hadlaan sida looga hortegi karo iyo diin ahaan waxay diintu ka qabto iyo noocaas. qaybta afraadna waxay tahay qaybta wacyigelinta guud oo ay mowduucyo kale ay soo hosgeli karaan. marka waxaan rabaa inaan uga hadlo dhinaca habfikirka Soomaalida iyo xanuunkan oo aan u arko in habka ay u dhaqmayaan ama u fikirayaan Soomaalida marka la eego xanuunkan uu khatar ku yahay. beriba waxaa la yiri waxaa la weydiiyey su'aal waxaa lagu yiri tukow goormaad wax dareyntaa? markaasuu yiri waxaan wax dareemaa marka ay laba isdhugato. laba qofood markay saa isu eegaan dareen baan qaadaa, inta uusan nabar isoo gaarinna waan hadaa, waan kacaa. isla su-aashaas baa waxaa la weydiiyey waa Soomaalidu tiraahdaa xunsho. waxaa la yiri xunshooy goormaad wax dareyntaa? markaasay tiri marka nabarku igu dhaco. halkan waxaan ka garanaynaa xunshadu in ay ka dareen yar tahay tukaha ama ka taxadar yar tahay. tukuhu aad buu taxadar badan yahay. xunshaduna dabcan waxay dareentaa marka nabarku uu ku dhaco. haddii marka aynu habka anagu aan u fikirayno eegno xataa waxaa ii soo baxaysa in xunshadu laftigeeda ayna dhaanto xagga taxadarka. sababtoo ah qofku haddii uu markiisa hore taxadar qaadan waayo marka labaadna marka nabarku ku dhaco ama dhibaatadu ay ku dhacdo uu taxadar qaadan waayo, haddee waxa weeye waa nooc aad u hooseeya oo aad u liita weeye. qofku haddii nabarku markaa ku dhaco ama dhibaatada laga digayo ama dareenka laga qabo ay markaa soo gaarto, labay mid tahay inuu dhibaatada wajihi karo ama khatarta uu wajihi karo ama inuu ka cararo oo ah in taxadar qaato. dhibaatada hadda xanuunkan uu leeyahay dhibaato la wajihi karo adduunkii baa ka wada qayliya ma aha, oo wax la arka ma aha, oo laga hor la daaweyn kara maaha, dawo male, tallaal ma laha. sidaa daraaddeed keliya inta ay hadda dhakhaatiirta noo sheegeen iyo dadka xanuunada faafaa takhasuska u leh waxa weeye in laga hortago. laakiin hab dhaqankeena ama hab fikirkii Soomaalida waxaad moodaa inay xanuunka isdiidayaan oo taxadarkooda uu aad u hooseeyo, taasoo khatar gelin karta. tusaale ahaan dowladuhu waxyaaba ay kula tacaalayaan waxaa ka mid ah inay soo saareen amaro ay leeyihiin waa in guryaha la joogaa, waa in
maaragtay la xiraa goobaha dadku isugu yimaadaan gawaarida la wada raacayo dadku meelaha ay maaragtay ku kulmi karaan xafladaha sidaas oo kale laakiin dadkeena Soomaaliyeed weli dhig jala uma siinin arrintaas waxaan moodaa sidii in la isu dhex joogo dhaqankii hore inuu sidiisii yahay nidaam dalkoo dhan wada camimay ama xitaa meelaha ay ka jiraan nidaamyadu ay gacanta ku wada hayaan oo dadku ay maaragtay ku fulin kara amarada ay soo saaraan ma jiro marka waxaa intaa dheer dadka xitaa wacyigelinta sameynaya in badan oo ka mid ah ayagu ma sameeyaan waxay dadka ka wacyigelinayaan talan dadka siyaasiyiinta ee Soomaalida aad bay uga hadlaan khatarta xanuunkan leeyahay amara ayay soo saaraan laakiin iyagu ma dhaqan geliyaan tusaale yar aan siiyo intii hadda xanuunkan uu jiray waddanka waxaa ka dhacay shirar waxaa ka dhacay doorashooyin deegaanada qaar ka mid ah golayaal deegaan bay doorteen waxaa ka dhacay xil wareejin xaflad loo qabtay oo dad badan ay hal hool ku kulmeen marka waa la isdhex joogay dadku ma xirneen mask baashan afka lagu xirto iyo sanka ma xirneen waa la is salaamayay waxaa kaloo indikilaba oo ku jirtay heshiisyo la kala seexday oo intaa la is salaamayay gacanta la is saarayay la isku dhawaa iyadoo wax kale oo maaragtay wixii dhakhaatiirtu ay dadka amreen aysan meesha ka muuqan waxaa intaa dheer qof kasta waxaad moodaa inuu u dhaqmayo waxaan la sheegayo in cid kale laga rabo oo isaga aan laga rabin ama kooxdooda aan laga rabin tusaale ahaan siyaasiyiintii oo aniga soo qaatay dadka shacabkaa sidoo kale suuqyadii waa furan yihiin masaajidii waa furan yihiin meel kasta waa sidii dadkuna sidii bay isu dhex joogaan bandoo yaroo habeenkii lasoo rogay xoogaa waa un wax yar oo maaragtay amrada lasoo saaray fulintoodii ah weeyaan maahe ma dabooli karaan dhibka meesha yaalla ma dabooli karaan sababtoo ah maalintii oo dhan baa la wada joogaa awalba habeenkii dad badan baa xaafadahooda geli jiray marka 8 la gaaro laakiin maalintii suuqyadii waa sidii dadku sidii bay isu dhex yaacayaan gawaaridii sidii baa loo wada saaran yahay cid walbana waxay ka qaylinaysaa aniga duruuf gaara ay haysataa ma yeeli karo marka yaa weeye cidda aysan duruufta gaarka haysan oo laga raba inay amarada fuliyaan ama talooyinka ay maaragtay loo soo jeedinayo ay ku dhaqmaan waa cid walbaa laga rabaa si guud laakiin cid walba haddii tiraahdo anigu kuma jiro haddii dadkoo dhan anigu kuma jiro oranayaan tusaale yar baan siiyo dadka wadaadada iyo culamada iyo wacyigelinta dadka sameeya oo aad dadka u wacyigelinaya diin ahaan bay ka mid yihiin laakiin haddana dhaqangelinta iyagu laftigooda waa la mid Soomaalida oo maysan dhaqangelin meelaha la isugu yimaado waxaa ka mid ah oo isku imaatanku ka dhaco dad badan oo boqolaal ah qaarkood masaajida kumayaal ay isugu yimaadeen baa jiraan hadba si u kala wen yahay masaajidada laakiin dadka intaa la eg in masaajidadii la xiro waa lagu dhici waayo iyadoo culimmada ay fadwoonayaan in masaajidada in dadku ay guryaha joogaan ay fiicanta waxay leeyihiin oo ku celcelinayaan dadku guryahooda ha joogaan masaajidadana ha furnaadeen dad yar ha yimaadeen haddii yaa laga celinayaa masaajidka marka ma dadka inta la qaybiyaa waxaa la dhahaya intiinan ma imaan kartaan intaan kala imaanaysa tusaale ahaan waxaa la yiri dadka xanuunada gaarka qaba iyo dadka waaweyn ee xanuunka u nugul yeesan imaanin
laakiin dadkii intiisii badnayd dee xanuuno gaara ma qabaan ilaan dadka hadda waxaan xanuunsanaya xanuunadan sonkorta iyo kuwa la midkaa qaba ama dadka waaweyn dadkeena waa ku yaryihiin dadka intiisa badan waa dhalinyara la yiraahdaa alxamdulilah caafimaad qaba marka intaa kuma filla waxay ahayd masaajidada in la xiro sida culummadu ay fadwoonayaan way leeyihiin in la xiraa fiican laakiin haddana ma rabaan inay xiraan marka dee haddii masaajidadii furan yihiin oo suuqyadii furan yihiin oo gawaaridii la wada raacayo oo wixii taxadar ahaa ee hala qaata la yiri aan la qaadanayn habdhaqankaas madax adeyga uu ku salaysan yahay iyo xanuunkan khatarta ah ee faafaya ee dad badan ee u dhinteen oo 200,000 ka badan 3 milyan dad ka badanna uu u asiibay oo ku dhacay inta kalena ay cabsi iyo walwal la nool yihiin see looga badbaadaya ilaahay baa badbaadada haya laakiin habka aan u fikerayno iyo habka aan u dhaqmayno waa ay adag tahay xanuunkan in laga hortago ama in laga daawoobo si dhaqso ah way adagtaa laakiin tan ilaahay de waa meesheeda kumaan darin tusaale ahaan wadamada gobolka ku yaala hadda soomaalida ugu badan dalka soomaaliya gaar ahaan ayaa ugu sii badan meelaha ama wadamada xanuunkan gobolka geeska africa dalalka ku yaala ee xanuunkan u asiibay waxaan umaleeyahay Djibouti waa ka badan oo keliya iyadoo Djibouti ay joogaan dad badan oo ajaaniba oo wadamada Yurub Faransiiska oo kale Spain oo kale dadka socda ay joogaan oo ah wadamadii uu aadka u saameeyay xanuunka iyo Mareykan intaba way joogaan laakiin Soomaalidu wadanka labaad way hadda ugu badan inta ogahay dalal iyaga kaga horeeyay xanuunka ayay hadda ka kormareen oo dhaafeen si xawli ahna wuu u sii faafaya marka dee taxadarka hala badiyo horaa loo yiri laakiin habkan aynu u dhaqmayno inagu khatar ina gelinaya waxaan ku talin lahaa in laga waantoobo oo danta guud la eego halkii qof walba uu ka qaylin lahaa dantiisa gaarka ah dukaankayga ma furan karo duruuf gaara ay haysata dee haddii aan laba dhib isu kaa qabsadaan dhibka daran waa laga tagaa kan yar labadooda khafiifka ahna waa la qaataa haddiiba aadan labadooda wada huraynin marka waxaan ku talin lahaa habdhaqanka iyo habfikirka aynu leenahay aynu wax ka bedelno si aynu uga badbaadno xanuunkan halista ah ilaahay inta u dhimatay allah u naxariisto inta u jiiftana allah caafimaadiyo inta ku xoolo weyday oo saameynta uu ku yeeshay ama ku shaqo weydayna ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.